waxaa maanta fagaaraha weyn ee iskool buluusiya ee degmada Xamrajab ee magaalada Muqdisho mar qura lagu wada toogtay saddex ka mid ah ururka Al-Shabaab kuwaasoo maxkamaddu ay ku heshay dambiyadii kala duwan ee lagu soo eedeeyay oo ay ka mid ahaayeen inay ka dambeeyeen dilal iyo qarxiyo ka dhacay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho iyo qaybo ka mid ah gobolada dalka. xubnaha maanta ee xukunka dilka lagu fuliyay waxaa ku jiray sarkaal ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo la sheegay inuu ka dambeeyay qarxiyo ka dhacay caasimadda oo ay ku waxyeeloobeen dad rayid ah iyo dad u shaqeeya dowladda dhexe ee Soomaaliya. sidoo kale waxaa ku jiray xubnihii maanta xukunka dilka lagu fuliyay Dr. Fanax oo ku qaraawan jiray sida ay sheegtay maxkamadda dhakhtar balse uusan ahayn dhakhtar isla markaana daawooyin qaldan uu qori jiray shacabka Soomaaliyeed sidoo kalena qayb uu ka ahaa dilal ka dhacay magaalada Muqdisho. goobta xukunka dilka lagu fulinayay raggaani ka tirsanaa ururka Al-Shabaab ee dilalka iyo qarxida lagu helay waxaa ku sugnaa mas'uuliyiin ka tirsan maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. haddaba xukunkaasi ay fulisay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya iyo sida uu dhacay waxaa warbaahinta u sharxay Muumin Xuseen Cabdullaahi ku-xigeenka xeeralyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida. maanta oo ay taariikhdu tahay 15 bisha 3 2023 waxaa lagu fuliyay xukunkii toogashada ahaa xukunsanayaasha kala ah 1 Maxamed Cumar Jiiro Dr. Fanax 2 Maxamed Cabdulle Abkow Cumar Biyamaalow 3 Shariif Maxamed Barkhadle Ayaanle Jeego wabillahi tawfiiq. maalmihii la soo dhaafay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya waxay fulinaysay dilal kala duwan oo loo geysanayay rag ka tirsanaa ururka Al-Shabaab iyo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo lagu helay inay ka dambeeyeen dilal ay u geysteen shacab ku dhaqan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Cabdiraxmaan waa bari warbaahinta Daljir Muqdisho.